si looga hortago xanuunka dunida ku faafa ee coronavirus u dhaq gacmahaaga si joogto ah adiga oo isticmaalaya saabuun ama alcohol si aad uga badbaado coronavirus ka ilaali gacmaha wajigaaga siiba sanka afka iyo indhaha haddii aad ku nooshahay goobaha uu ka dilaacay coronavirus iska yaree ama ha tegin meelaha ay dadku ku badan yihiin fadlan daawade qof walba aad la macaamilayso ka durugsano masaafo dhan 1 mitir hana ku dhahay dhisin dadka meelaha ay ku badan yihiin qofna ha ku salaamin gacmahaaga sidoo kale ka ilaalisa gacmahaaga in aad ku taataabato darbiyada iyo meelaha aan nadiifka ahayn haddii aad isku aragto hargab ama qandho ha ka bixin gurigaaga intii macquul ah haddii aysan jirin wax daruuri ah sida cunto ama daawo muhiim ku ah ma ka weyn tahay 40 sano jir waa inaad si gaar ah u taxadartaa maadaama dadka inta badan la dhibtooda cudurkani ay ka weyn yihiin 40 sano jir haddii aad qabto xanuuno kale sida sokorta cagaarshowga burkiitada neefta iyo dhammaan xanuunada daba dheeraada si gaar ah isku ilaali adigoo muujinaya taxadar dheeraad ah ilaahay ayaa caafimaadka iyo xanuunka labadaba haya ee tala saaro asaga oo ka dheeraw wax kasta oo naftaada dhibaato u keenaya kuna dhaqan waxa uu Alla ku faray baraaruq qaran waxay mar walba ummadda Soomaaliyeed ku wacyigelinaysaa inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan ka hortagga xanuunka faafaha daran ah ee COVID-19 ama coronavirus baraaruq qaran waxay mar walba ummadda Soomaaliyeed ku wacyigelinaysaa inay si wada jir ah uga wada shaqeeyaan ka hortagga xanuunka faafaha daran ah ee COVID-19 ama coronavirus